maanta waa sabti 6 bisha June 2020 sida uu ku dhawaaqay golaha wadajirka ee aqalka sare aqalka hoose baarlamaanka federaalka 25 bisha la soo dhaafay maanta waxa loo ballansanaa in la qabto baarlamaanka isugu yimaado kulan wadajir ah labadiisa aqal oo ah kulanka toddobaad ahna kii ugu dambeeyay muddo xileedka hay'adaha dawladda ee 4 sano ahaa kii ugu dambeeyay kulanka maanta wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah ee baarlamaanka bulshada Soomaaliyeed iyo saxaafadda uu leeyahay marka ugu horeysa waa 4 sano ee dawladda kii ugu dambeeyay marka ku xigta madaxweynaha ayaa sida dastuurku qabay tahay inuu furo kalfadhiyada noocan oo kala ah kana horjeediyo khudbadiisa dastuuriga ah ee uu kula hadlayo qaranka iyo shacbiga Soomaaliyeed isagoo ka hadlaya waxyaabihii dawladda u qabsoomay iyo dhammaan waxyaabaha ay tahay in dawladda maaragtay ay ku soo fool ee ay qabato sidaas darteed ay saxaafadda Soomaaliyeed mar walba heegan ugu jirtaa in kulanka noocan oo kala ay tagto oo ay shacabka u soo tabiso su'aalaha muhiimka ah ee bulshada ka dhex buuxayana ay weydiiso wakiilada la soo doortay ee fadhiya golaha baarlamaanka nasiib darro xalay waxaana lagu wargeliyay in saxaafadda Soomaaliyeed ee madaxa bannaan laga joojiyay kulankaas oo aan ka qayb geli karin markii arrintaas ay soo baxday si aan u xaqiijino waxaan la xiriirnay xafiisyada baarlamaanka labada aqal gaar ahaan dadka qaabilsan maamulka iyo kuwa qaabilsan saxaafadda qaabilsan si cad waxay noogu sheegeen amar ka yimid guddoonka baarlamaanka iyo madaxda hay'adaha dawladda qaarkood in lagu joojiyay in saxaafaddu ayna ka qayb geli karin saxaafadda madaxa bannaan ayna ka qayb geli karin kulanka baarlamaanka markii aan weydiinay su'aal ku saabsaneed sababta arrintaas loo cuskaday maadaama kulanka baarlamaanku yahay dastuuri isla markaana saxaafaddu inay tagtaa aysan ahayn dambi ama meel reebaysa aysan jirin waxay noo sheegeen in arrintaas lagu saleeyay cudurka corona oo dalka ka jira darteed lagu saleeyay laakiin su'aasha adag ee ay iska jawaabi karin halkan marka la ku celinayo waxay tahay baarlamaanka aqalkiisa hoose 275 ayuu ka kooban yahay marka lagu daro aqalka sare 300 iyo dheeraad ayay gaarayaan shaqaalaha baarlamaanka marka lagu daro 400 ayay sii cagacageynayaan marka lagu daro dadka ka imaanaya madaxtooyada iyo baarlamaanada maamul goboleedyada oo kulanka lagu casuumayna 500 way sii dhaafayaan waxa marka su'aal ah intaas dad ah iyadoo lagu casuumay kulankii baarlamaanka maxaa loogu diiday 15 TV ama 15 idaacadood oo madax bannaan maxaa loo beegsaday oo loogu diiday baarlamaanka waa su'aal adag waa su'aal muujinaysa in wax la qarinayo ay jiraan waa su'aal muujinaysa in dawladdan ay dagaal kula jirto saxaafadda madax bannaan intaas waxa dheer oo baarlamaanka dadka ka shaqeeya aan la hadalnay xalay noo sheegeen in hay'adaha warbaahinta ee dawladda afkeeda ku hadla ay tagi doonaan oo ay soo tagin doonaan waxaan leenahay hay'adaha warbaahinta ee dawladda afkeeda ku hadla kuma filna inay shacabka siiyaan xogta ay u baahan yihiin gaar ahaan xilligan xasaasiga ah marka labaad warbaahinta dawladda afkeeda ku hadasha shacbigu kuma kalsoona marka laga hadlo xogta dawladda ka imaanaysa iyo su'aalaha adag ee loo baahan yahay in dawladda la weydiiyo cidda kaliya ee ay shacabka Soomaaliyeed aaminayaan waa saxaafadda xorta ah waa saxaafadda madaxa bannaan ee dalkan ka jirta oo iyagu habeen iyo maalin u taagan inay dadka siiyaan xogta ay u baahan yihiin ee ay su'aalaha adag weydiiyaan madaxda dawladda ee kala duwan waxaan marka u aragnaa go'aankaas inaan ahayn mid ku xiriirsan coronavirus laakiin uu yahay mid ujeedo siyaasadaysan ay ku jirto mid laga leeyahay in lagu daboolo indhaha iyo dhagaha shacabka Soomaaliyeed sababtoo ah saxaafadda waa indhihii iyo shacabka dhagahoodii weeyaan marka mar haddii iyaga loo diiday inay meesha tagaan waxaa la doonayaa shacabka indhaha laga xiro waxaa la doonayaa in dadka dhagaha laga xiro oo dadka Soomaaliyeed ay garan waayaan dalkan wasiirkiisa iyo halka uu socdo muhiimadda ay kulanka baarlamaanka uu leeyahay waxay tahay madaxweynaha fursad ay u tahay isaga inuu meesha ka hadlo maadaama khudbadiisa dastuuriga uu jeedinayo inuu sheego 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne inaad sheegtid wixii ay dawladdaadu qabatay ee dadka Soomaaliyeed waxa ugu maqan tahay inaad u sheegtid fursad bay u haysataa kaamarooyinkii madaxa bannaan ku hortaagan jaanis waxa u haysataa 14 milyan oo Soomaali ah oo gudaha iyo dibadda ku nool inaad warkaaga u gaaro oo ay khudbadaadu arkaan yaa jaanis u haysataa waxay ahayd inaad ka faa'iideysato ma ahayn in been loo sheego madaxweynaha oo la yiraahdo kaamarada xafiiska madaxweynaha kugu filan taas oo dadka Soomaaliyeed aan ka gadmaynin taas oo dadka Soomaaliyeed aan marnaba aaminaynin dadka Soomaaliyeed dawladdu way ka aamin baxeen ma aaminayaan kaamara xafiiska madaxweynaha laga keenana ma aaminayaan dadka ee dadku waxay aaminayaan idaacadaha iyo warbaahinta madaxa bannaan wiilasha ee gabdhaha Soomaaliyeed ee madaxa bannaan ee la yaqaan madax bannaanidooda inaanay shuruud ku xirnayn ee la yaqaan madax bannaanidooda inaanay ku salaysnayn lacag yar oo la siiyo inaanay ku salaysnayn
سيادرتين مدحوينه waxaan leenahay madaxweyne fursada haysata banaanka u soo bax saxaafadda Soomaaliyeed hor imow su'aalaha aad ka jawaab khudbadaada oo dhameystiranna shacabka Soomaaliyeed u mari qalabka warbaahinta ee madaxa bannaan ee la aamini karo ee lagu kalsoonaan karo intaas waxa dheer dastuurka qodobkiisa 32 waxa ku qoran federaalka ee dalka in xogta dawladdu ay hayso ay tahay in shacabka la siiyo oo aan laga horjoogsan karin baarlamaanka waa ilaaliyaha iyo korjoogtayaha hay'adaha dawladda ee kala duwan ee dastuuriga waa ilaaliyaha in dalka dimuqraadiyad uu ku dabaalo oo uu ku shaqeeyo mar haddii dastuurka lagu xadgudbayo oo saxaafadii laga mamnuucayo baarlamaanka maxaan baarlamaanka ku tilmaami karnaa ma dastuurku ku timanaya baarlamaanka mise mid uu ilaalinaya aan dhihi karnaa soo ma noqonayo baarlamaanka reerkii geedkii uu harsanayay hoosta ka jaraay soo baarlamaanku ma noqonayo dastuurka isaga lagu dhisay ee uu ku yimid mid duminaya soo ma ah guddoonka baarlamaanka waxaan ku baaqaynaa labadiisa aqal waqtigii kala talisnimada waa dhammaaday saxaafadda Soomaaliyeed waxay diyaar u tahay inay kaalinteeda qaadato waxay diyaar u tahay in su'aalaha adag ee coronavirus ku saabsan ay soo gudbiso waxay diyaar u tahay in doorashooyinka ka hadlaan waxay saxaafadda Soomaaliyeed diyaar u yihiin inay ka hadlaan oo baaritaan ku sameeyaan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay diyaaradii lagu soo riday Bardaale ee u waday gargaarka dadka Soomaaliyeed ee maaragtay corona uu hayo ee gaajadu ay hayso ee maaragtay cudurradu ay hayaan waxaasuna saxaafadda inay baartay rabtaa oo ay ogaadaan oo ay banaanka soo dhigaan waa in loo ogolaadaa saxaafadda Soomaaliyeed waxay rabtaa inay baarto dadkii lagu laayay gololay oo ay ogaadaan cid dishay oo ay shacabku soo bandhiyaan dhammaan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha waa in la isku xisaabtamaa saxaafaddana waxay ka qaadanaysaa kaalinta ugu horeysa sidaa darteed waxaan mar kale ku baaqaynaa in saxaafadda la siiyo access ama gaaritaan aan shuruud ku xirnayn dhammaan kan kaliya ma dhammaan kulamada baarlamaanka dhammaan howlaha dawladda dhammaan arrimaha ku saabsan doorashooyinka waa in banaanka la soo dhigaa doorasho aanay saxaafadda goobjoog ka ahayn oo aanay ka qaybgelin ma noqon doonto doorasho xor iyo xalaal ah cid aamini doonto oo yeeli doontona male doorasho saxaafadda loo hanjabayo cidna kuma kalsoonaan karto saxaafadda waxaan leeyahay kulamada baarlamaanka ee noocan oo kale maanta oo kala dhacay yaanay ka bixin qalabkiina warbaahinta waxaan idinka codsanayaa in arrintaas meel marisaan oo ka baarlamaanka iyo xildhibaanada waxa ay sheegayaan ee inta yar ee la soo jarjaray marka la idiin soo diro inaad delayed ku qabataan oo aad tirtirtaan oo aad ka diidaan in ay dhex maraan xarumihiina warbaahinta sidaasoo kale intaa beddelkeeda aad bilowdaan baaritaano ku saabsan sababta loogu diiday baarlamaanka warbaahinta maanta oo aad arrintaas soo bandhigtaan oo aad ogaataan gunta hoose ee sheekadaas ka dambaysa waxaan kaloo idinku baraarujinayaa in aad isku duubnaataan oo aad qaadataan kaalinta aad leedihiin dalka wuxuu ku socdaa doorashaduna muhiim u tahay maaha annaga oo keliya laakiin dalka oo dhan Soomaaliya oo dhan ayaa leh qof kasta oo Soomaali ayaa xaqaasi uu ka maqan yahay sidaa darteed waxaan idinku baraarujinayaa inaad qaadataan kaalintiina isla markaana aad u sinaataan dhammaan bulshada Soomaaliyeed hadday tahay siyaasiyiin hadday tahay kuwa rayidka hadday yihiin shacabka hadday yihiin barakacyaasha hadday yihiin dumarka Soomaaliyeed ee suuqyada wax ku iibinaya dadka waalidiintooda iyo carruurtooda la leynayo dadkaasoo dhan waa inaad u sinaataan oo aad ka duubtaan codka soona bandhigtaan si xor ah oo dhexdhexaadnimo ah marka aad iyo aad u mahadsantihiin قربك على الاستماع شو ما صار ساوي واحد بس حسن
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo kaalinta warbaahinta madaxa bannaan madaxweyne iyo guddoonka baarlamaanka intaba oo maanta u fadhiya shirka saxaafadda loo diiday. waxaan rabaa inaan u sheego haddii aad ogtihiin iyo haddii aadan ogeyna waxaa laga yaabaa inaad dalka dibadda uga maqnaadeen 30 sano ugu dambeeyey laga soo bilaabo 91 xilliga dawladda militariga ay dhacday wixii ka dambeeyey saxaafadda Soomaaliyeed ee xurta waa xilliga ay asaasmeen waana xilliga dalkan ay ku soo laabatay dimuqraadiyad. madaxweyne iyo guddoon baarlamaanka hadii kale saxaafadda madaxa bannaan 30 sano oo wadanka uu ku jiray ka soo kabanayay militarigii waxa dalkan ku soo celiyay in 4 sano kasta doorasho ay ka dhacdo oo u ololeeyay dimuqraadiyaddaas waxay ahaayeen saxaafadda madaxa bannaan. waa inaad ogaataan inaysan ahayn saxaafadda ama warbaahinta dawladdu ay leedahay oo afka dawladda ku hadasha maxaa yeelay maba jirinba 2010 kadib baa la aasaasay saxaafadda afka dawladda ku hadasha xilliga burburka ma jirin. sidaa daraaddeed waa inaad ogaataan saxaafadda madaxa bannaan inay tahay tan dalkan inuu heerka maanta uu taagan yahay ka qayb qaata inay tahay saxaafadda madaxa bannaan waa inaad ogaataan. labo waxaa wax lala yaabo oo laga xumaada ah madaxweynihii dalka ugu sarreeyay kulanka uu furayo ugu dambeeyay weliba baarlamaanka galfadhigiisa iyo baarlamaankii sharci dejiyaha ahay oo shacabka metelaya. waxaa shacabka metelaya waa baarlamaankii shacabka metelayay inay diidaan xogtii ay haayeen in shacabka loo soo gudbiyo waa waxaan la yaabanahay maxaa yeelay ayagaa sharci ilaaliyaha ayagaa xogta sida dastuurka uu qabo qodobka 32 in qof walba oo xogta hela ah xogtaas cidda la rabo inay ku kontaroosho ama ku ilaaliso oo sharci ka soo saarto waa baarlamaanka. haddii marka baarlamaankii uu xadgudubka asaga bilaabo waxay noqonee in wadanka halkii aan u wadnay iyo saxaafadda madaxa bannaan dimuqraadiyadda ay ka shaqaynaysay inay mugdi ku jirtay tilmaameen. maxaa yeelay waxaan ognahay warbaahinta oo dawladda oo loo ogolaado meelaha aan loo ogolayn warbaahinta madaxa bannaan inay ku hadasho kaliya afka qaybta markaas jooga xafiiska. waxaan ognahay warbaahinta dawladda inaysan dhigi karin waxa soo horjeeda ama mucaaradka ama dhaliil ka sheegaya dawladda faraalka ay samaynayso. marka madaxweyne iyo guddoon baarlamaan waa inay ogaataan warbaahinta dawladdu inay tahay warbaahinta maamulka markaas jira oo aysan ahayn warbaahinta qaranka laakiin warbaahinta qaranka ay yihiin warbaahinta madaxa bannaan. maxaa yeelay warbaahinta qaranka waxaa la dhihi karaa cidda dhibka jira iyo wanaagga jira sheegaysa. marka warbaahinta dawladdu waxay sheegtaa kaliya dawladda propagandadeeda iyo waxyaalaha ay qabatay faafisaa ama ha noqdaan wax sax ama wax qaldan ha noqdaan. sidaa daraaddeed marka waxaan leenahay in saxaafadda madaxa bannaan maanta loo diido inay kulanka baarlamaanka ka qayb galaan 20 weriye ama 30 weriye in loo diido kulanka inay tagaan oo 600 ka badan. waxaan ognahay hay'adaha dawladda qaybaheeda kala duwan iyo marti la casuumeynay inay kulanka ka qayb galayaan oo marti laga yaabo inay 100 gaarayaan ama